xafladda 23 guurada 18 May oo ay soo qaban qaabiyeen xisbiyada kulmiye iyo ucid ee dalka Finland ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda xisbiyadaasi waxgarad odayaal haween iyo dhalinyaro ka mid ah jaaliyada Somaliland ee wadanka Finland dhammaan xubnihii halkaasi ka hadlay waxay hambalyo u direen shacabka Somaliland iyaga oo ka hadlayana waxay yiraahdeen maalin qaran qof kastoo Somaliland xaq wuxuu leeyahay meel kastuu joogo inuu maaragtay dabaaldega ka qayb qaato marka Somaliland waxaan rajaynayaa guul mar labaad shacabka halka soo qayb galay aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxa isu tagay xusbiga muxaafadka ah ee kulmiye ee dawladda haya iyo xusbiga mucaaradka ee ucud oo anigu wakiil ka ahay waxa la isla gartay bal in ummadda la tuso in danta dalka iyo dadku ay xusbi muxaafid iyo mucaaradba ka dhaxayso marka laga hadlayo qadiyada Somaliland iyo halgankeedii rukunka ugu weyn qolada mikrofoonada qabsata way laabaano waa haweenka wali 23 ka sano mikrofoonada haweenka laguma xuso waxaan israadaa intan dambe aynu baasha wadwadnay iyo intii dagaalka ku jirnayba laf dhabarteena ugu weyn bixin halganka qarnimada Somaliland marka haweenka shacabka loo tumo waxaanu nahay laba dawladood oo isu tagay baynu ahayn geeli baynu kala soocannay waa marka taariikhdan la eego marka waxaanu noqonay laba reer oo wax isku darsaday oo la kala noqday radeeni 18 May 2014 ilaahay sanadkii hore wayna dhaafay sanadkana barwaaqaynu ku soo gaadhnay farxad iyo reereyn baynu rajaynaynaa rag iyo dumarba runtii haddii aan ka hadlo qadiyada aynu kaga beeganahay adduunka Somaliland Finland markaan eegno محمد مرنا معناته معنا وي معناها ستيج دون كمية لقى هذا مالي حسب ليما وناشنال داي وي وما نقروي مركب dhammaan qurba joogta Finland ee xafladan ka soo qayb gashay waxa wajiyadooda ka muuqday farxad iyo reereyn ay ugu dabaaldegayaan munaasabadda qarannimada Somaliland ee 18 May aadan Yuusuf Cismaan Home Cable TV Helsinki Finland
kulmiye iyo de waxaanu qabanay anoo magaca kulmiye aanu ku hadlayna gudoomiyuu joogo haddana da kulmiyana hore anaa ugu horeeyay jagadan marka ma rabo maanta inaan halkan ka hadlo kulmiyaan nahay waxaanu qabanay laakiin nin walba Soomaali waxay tiraahdaa nin walba indhihiisa oo macallin reyaale markuu waddanka ku wareejiyay 5 milyan oo dollar qasad way hawanis maantana sanadka maalin walba waan tagaan waddanka meel wad mashruuc iyo barwaaqo iyo wax walba ayaa socda intaasaa indheheena intaasaa inoo macallina madaxweynaha jooga iyo dawladdiisa iyo waxay qabteen intaba waanu duceynaa Faysal Cali Waraab ayaan hore gudoomiyaha xisbiga kulmiye وعد بان سوري وانا وضع عشرين أنا جي قدومي يا ركله horumarka dawladda mar waxa weeye dawladda inaad daliilaheeda aad meelaha ka tusid mar waa reality-ga wuxuu noo qoray gudoomiye Faysal in dawladdan ay tahay dawladdii ugu wax qabad badan ee Soomaaliya soo martay dawladdii ugu wax qabad badan ee Soomaaliya soo martay marka insha Allah taala taana ku dheeraan maayo bomboonintana ku dheeraan maayo markaynu qoladayna kulmiye sunnahay baynu faanka baabaqada waxaas insha Allah taala macnaha shubi doonaa maanta waa layna weheliyaa marti sharaf badan baa inala joogta hadalka waa idinku badiyay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قدومية قربتشوك سومالان مدن سلمان محمد فارح وما تسيهي نور بورين سومالان هو الصفير